السلام عليكم. booliska dalka Japan ayaa sheegay in ay heleen nin 71 jir ah oo u dhashay isla dalkaas kuna nool magaalada Tokyo kadib markii ay kasoo dacwootay mid ka mid ah shirkadda isgaarsiinta ee dalkaas. ninkan ayay booliska sheegeen in 24,000 oo jeer uu telefoon dacwad ah u diray shirkadda isgaarsiinta ee dalkaas oo uu sanad ka hor ka iibsaday telefoon. Akitoshi Akumoto ayaa lagu eedeeyay in kumanaan jeer uu wacay qaybta wicitaanka bilaashka ah ee shirkadda, halkaas oo loogu talagalay in ay soo wacaan macaamiisha u baahan in la caawiyo. booliska ayaa sheegay in ninkan uu 8 maalmood ee ugu dambeeyay si xad dhaaf ah u wacay shirkadda, balse ninkan la xiray ayaa shirkadda ku eedeeyay in ay ku xadgudubtay heshiis uu la galay markii uu ka iibsanayay telefoonka. ninkan ayaa sheegay in sababaha uu u wici jiray shirkadda ay ahayd sidii ay ugu caawin lahayd cilad ku timid telefoonka. Mr. Okumoto ayaa beeniyay in uu dhibaateeyay shirkadda, waxaana uu booliska u sheegay in isaga uu yahay dhibanaha saxda ah. shirkadda ayaa warbaahinta maxalliga u sheegtay in ninkan uu 2 sano ee lasoo dhaafay si joogto ah u wacay shirkadda, haba ugu darnaatay 8 maalmood ee ugu dambeysay. warbaahinta Japan ayaa sidoo kale ku eedeysay in shirkadda ay ku xadgudubtay heshiis iib ah ay la saxiixatay ninkan. afhayeenka u hadlay shirkadda ayaa sheegay in mar walba uu ninkan soo waco shirkadda uu u handado shaqaalaha kadibna uu jaro telefoonka. afhayeenka shirkadda ayaa wakaaladda wararka u sheegay in Mr. Okumoto loo xiray eedeymo la xiriira in laga shaqaysan waayay carqaladana ku noqday ganacsiga shirkadda.